shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen duubabka dhaqanka ee gobolka Awdal hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama ay kaga jawaab bixiyeen hadal uu wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur ka jeediyay golaha guurtida ee Hargeysa. hadalkaasi uu wasiirku ku sheegay inuu weli taagan yahay khilaafkii ka taagnaa degmada Saylac isla markaasina golaha dhaqanka ee beesha Ciise ee fadhigoodu yahay diridhaw ay imanayaan Saylac si ay kulan ula yeeshaan 11 xubnood oo ka mid ah golaha guurtida ee Soomaaliland. haddaba hadalkaasi ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo ay ka biyadiideen madax dhaqameed iskugu jira salaadiin cuqaal iyo waxgarad kale isla markaasina ay si adag uga jawaabeen duubabka dhaqanka ee gobolka Awdal ee maanta shirka jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii hadalkii ka soo yeedhay wasiirka daaqiliga ma dhammaan buu arrintii Saylac ma dhammaan buu wasiirku guurtii baan u direeyaa buu guurtii hore noogu timiday waxa lagu kala helay bay ahayd arrintaas Saylac doorashadii sharci weeyaan sharcigaana anagu ma jabinayno cidii jabinaysa iyada cirka roobku ban waxaan leeyahay ilaa maanta waxa la leeyahay ma dhammaan weli Saylac inay arrintaasi dhamaataan oo haysanay ninkii diiday isaga diiday laakiin anagu sidii doorashadii loogu kala helay baan ku joognaa waxa la leeyahay galdihii muxuu ahaa Itoobiya joogay ee ugaaska Ciise ayaa loo yeedhayaa guurtida iyo hadii la gadaasa ku wada galaya shir Saylac waxaan leenahay dee ugaaska iyaguna galdu leeyahay wuxuu joogaa Jigjiga kaasina yimaado gandiisi isagoo wato Saylac ay yimaadade waada Itoobiya laga soo gurayo kuwa kala bursigana laga soo guro halka ay yimaadaan waxna soo kiciyay maanta anagoo og dhibaatadii ka gaadhay ummadda dhibashadii ka dhacday wixii anagoo og in amasayrka Soomaaliya talada Soomaaliland Jabuuti doonta anagoo la yaaban warantaasi aan ku dhaka faarsanahay maanta mar labaad la noogu celiyay in maantana loo doonayo Itoobiya taladii magaalada Saylac in loo doonayo Itoobiya ay xukuumadda ku dhawaaqday arrinta ayada arrin nooc cuntamaysa maaha arrin aan sugaynay maaha waxaan maanta u sheegaynaa haddaan nahay hogaamiyaasha dhaqanka arrintaas maanta halka laga dhawaaqaya inaan ahay mid sina aan loo aqbalay waxaan inii sheegayaa in dhammaan saqiir ilaa kibir nin kasta meesha uu joogo arrigaagaad ilaashataan inii sheegayaa maanta beelahan walaalaha nahay ee reer Sheekh Saxaaq ragooga faduusha wada ee Cabdi Waraaba kow ka yahay qabsadaan reer walba waxaan suldaan walba waxaan u sheegaynaa ism walba waxaan u sheegaynaa gardarrada soo noqnoqonaysa ninku meesha lahayn mar walba uu ka talinayo inay qabsadaan ma sheegaynaa ma ogolin Itoobiya dad laga keeno ma ogolin dad meel kale laga keeno ma ogolin Hargeysa jooga meel lahayn ka taliyo ma ogolin kiilaha ka talin doona kiilaha tagi doona kiilaha cidii wax ka tabanaysaana diyaar baa yihiin waxaan leenahay hadalka wasiirka arrimaha guduhu shalay sheegay waxa uu dhaliyay xasaasiyad buu ka dhaliyay gobolada Awdal Isra wasiirka arrimaha guduhu wuxuu ku shaqalaha nabadgelyada inuu nabadgelyadii ka hadlo iyo halkay marso ayahay inuu maanta yiraahdo Soomaaliland Itoobiya laga soo duulo oo diridhaba gandaha fadhiya Itoobiya ka tirsanaa ka taliya arrinka Saylac ayuu ku dhawaaqay waxaan u leenahay waa mid aad iyo aad loola yaabo ummadii oo dhan ay la yaabanta shalay bay ahayd wasiirka arrimaha guduhu markuu arrinkii Saylac Saylac lagu xalin lahaa uu ka doonay Jabuuti maantana wuxuu ku xigsiiyey diridhaba laga doono halkeeda laga keeno waxaan u leenahay arrinkaas ma qabato Soomaaliland meel ka dhac iyo sharaf darro ayay ku tahay inuu wasiirkeedii arrimaha guduhu uu dawladda shisheeye uu ogolaaday soo farageliyaan arrimaha Soomaaliya iyo arrimaha Saylac waxaan u leenahay arrinkaasi waa arrin foolxuma ku ah qaranka wasiirka arrimaha guduhu nabadgelyadii dalka laga dayrinaya inuu ka hadle inuu taa ku dheeraade arrimaha Saylac waa arrimo distoria oo ay ka dhaceen doorashooyin si kastaba haatee hadalka ka soo yeedhay madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal ayaa wuxuu u muuqdaa fariin cabasho huwan oo ku socota madaxda sare ee Soomaaliland sidoo kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa hore u sheegay isla markaasina maalintii shalay ahayd ku ceshay maruu la hadlayay golaha guurtida ee Soomaaliland in dhankooda maamul ahaan ay ka dhamaatay xalintii khilaafkii ka dhashay doorashadii golaha deegaanka ee degmada Saylac. Hashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.